dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka Dacwaley ayaa ciidamada liyu booliska ee ka soo jeeda deegaankaasi waxay qafaasheen salaadiin iyo caqlo ka mid ah Jamhuuriyadda Soomaaliland oo halkaasi u joogay maalmihii la soo dhaafay nabadeynta halkaasi ay u tageen balse si aan sharaf lahayn ayay u qafaasheen kuwaasi oo ka mid ah ciidamada Mustafa Cagjar oo soo amray markii ay halkaasi ka qaadeen qabaal dushii ayay sii saareen oo may xeereen sidii nabadoono halkaasi ku yimi inay xaliyaan dhibti ka taagnayd kaga sii darantee markii ay geeyeen dowlad deegaanka Itoobiya caasimadeeda Jigjiga waxa ay ku sameeyeen in ay intay u soo meydhaan oo ay soo dhaajiyaan ay warbaahinta hor keenaan oo ay yiraahdaan annaga halkan nimi oo waxa naloo keenay oo waxaan u nimi nolona soo galbiyay sidii aan nabadaasi uga shaqayn lahayn hadda waa salaadiintii iyo dhaqankii ka soo jeeday beesha Isaaq ee ay qafaasheen ciidamada liyu booliska ee arxanlawayaasha ee dadka ku laayay maalmadii shalay toole Dacwaley ayagana lagu laayay haddaba tani maxay u noqonaysaa dadweynaha beesha Isaaq ee daawanaya before iyo after ama markii hore ee la qaaday iyo sida loo galay iyo sida gaadiidkoodii loo dhacay iyo sida arxan la'ida ah ee loo saaray qabaal dushi ay siigadu ku sii dishay kadibna cumaamadaha iyo koofiyadaha inta loo hagaajiyay oo la yiri soo meydha warbaahinta ay la hadleen ee markaasi lagu amray inay hadalkan ay bixiyaan bal salaadiinta aan dhageysano hadalkii ay ka soo jeediyeen halkaasi oo ah caasimada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya hadalkaas oo ahaa hadal qasab iyo sandulle lagaga dhigay in ay ku hadlaan markii horena maxaabiis ahaan looga qaatay aaga deegaanada Dacwaley ee degta beesha Arab alxamdulillaah rabbil caalamiin waa nabad qabnaa nabad baynu ku nimid odayaashii guurtida ahaa ee beesha reesha Isaaq ee ergada halka u tagay cidi kama dhimanin waan wada nabad qabnaa cidina nagama dhaawacmin waxa miidiyaha la wareejinaya waxba kama jiraan nabad qabaan Jigjiga ku nimid wixii hawl hawsha xalkeedana dib baynu ka wada gali doonaa biidmillaahi tacaala madaxda sharafta leh wasiirada xildhibaanada leh la taliyayaal leh iyo odayaasha guurtida ee heer deegaan iyana goobta fadhida odayaashii aan odayga u ahayn wada soconay dhamaantiinba waxaan isku salaamaya salaanta islaamka halka qodob ee kaliya aan anigu halka ka jeedinaya ama ummadda afarayna waxa weeye dhamaantayo inaanu nabad qabno nabad qab Jigjiga ku nimi hudheelkii martidii aan la soo dajiyay wax dhib ah oo aan caawa ka sheegaynaa goobtan aanay jirin wixii xalxal iyo nabadeynta dib baan uga hadli doonaa laakiin dhamaanteen nabad qab baan ku nimi waxa propagandada idaacadaha laga wadaan wax ka jiraan ma jiraan odayaashu wada nabad qabaan waanu dhannahay intaasaan ku soo koobaya ilaahay baa horta mahad leh ilaaha saaka iyo deemikadan bale ayaa mahad leh saaka waxa ay ahayd waqti imikana waa waqti aad iyo aad waxa u sii mahad leh madaxda sharafta leh iyo caalan noogu timi ee na soo kaxaysay ee Jigjiga nabad qab nagu keentay aad iyo aad bay igu mahadsan yihiin waxa kale oo aan u mahadnaqayaa dhammaan iyagana u mahadnaqayaa odayaasha golaha deegaanka ee iyaguna halkan fadhiya waxa kale oo aan idiin sheegayaa hawleeyinku bay inoo bilaabatay dhammaan maca deegaanka maca xukuumadda maca inagiina marka inaga lafteenu aan degna laakiinse waxa weeyaan waxa inaga dambeeyana aan ku tashano sida degdeg hadayno alla ka dhigo wax uga qaban lahayn insha Allah taala waxaan u mahad celinayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala nabad soo keenay dhamaanteen marka labaad waxaan u mahad celinayaa wafdiga xukuumadda ka socday ee Yoocaale naga hor yimid Yoocaalaanu iska soo raacnay aad iyo aad u dadaalay si wanaagsan oo sharaf iyo qiimo leh oo kalgacal leh aanu isu soo raacnay noo soo dhaweeyay halkan noo keenay aad baan ugu mahad celinayaa wasiiradeena nacam wasiiradeenu hawl culus bay guteen ilaahay baa ka jazaaysiinay jazaayigood ha siiyo marka labaad waxaan u mahadnaqayaa golaha nabadda ee deegaankeena ee hudheelka nagu soo dhaweeyay